السلام عليكم أصحابي، معنا wanaagsan wacan maanta arrin kale in la hayo iga caawisa madbaq nadaafadiisa kala xasaran inta muno wada waqsan tahayo meel aan nidaam u baahnay bay nidaamka keenaysa idinku dhageysta asxaabi dhagta ii dhiga insha Allah in nacamleeyana insha Allah samarka markay tahay marka fasaxa tahay markay badan caruurta joogan guriga waad aragtay ma filaya koob biyo soo qaadanayaan koobkii meel bay dhigayaan haddana koob casiir soo shubanayaan koobkii ay biyaha ku cabeen kuma cabeeyaan mid kale soo qaadanayaan adoo maalin oo dhan waxaad arkaysaa 10 koob meesha yaala dhowr biyo lagu cabay dhowr casiir lagu cabay mid caana lagu cabay kama dhamaanayaan madbaxa koobkaas badan meelaha yaalan way dhiban aniga bileerado kale iska caadi yaga marka lagu quraacdo waa lagu ridaa qasaalada marka lagu casheeyo waa lagu ridaa laakiin koobka badan oo tiraha badan ba nidaam iyo edeb iyo akhlaaq u sameeyay idinku bari leeyahay insha Allah adduunka waxaan ugu nacbahay meeshan markay isku dhaxdaasan tahay koob caana soo qadayo cabiyaan iska dhigaya casiir soo qadayaan iska dhigaya biyo soo qadeen iska dhigayaan marka maxaan sameeyay waxaan oo niga qaad meeshan iga masax iga hagaaji maanta aan soo dhigin waayo koobka qaar biyaha ku cabaan kale iska nadiif waxaan sameeyay qof kasta koob baan soo qaaday طبعا magaca halkaas aan ku qoraa laakiin caruurtayda magacyadooda ma rabaan social media soo dhigo waxaan tusayaa koobab waxu ku qornay qof kasta koobkiisa halkaas aan u surayaa bismillah mid kasta halkaas soo qaadanaya biyo cabaya oo dhigaya ama ku celinaya hadduu casiir ku shubo الحمد لله يرحمك الله ما يدهده يهديكم الله ويصلح بالكم عصير ما كشفته باش هلكن يتالا وير ما يدايا اون هدو بيدوني هذا ما كشفته عانا هدو كعبه ما دونيس كعبته وير دق اون انا هي ورينا صدخداسن كرديا هدو غسالده طبعا صدخداس ووحي سو دافسن قراعده قدده عشده طبعا قراعده كوب بندقه وعادي عشده قدده كوب بندقه وعادي عشرة كوب لكن أنت ودحيسة وأنت قراءة ودحيسة قدر ودحيسة قدر يا عشرة ودحيسة عشرة أنت نسيسي حد بيبيع بيان هالكاس حس لازم كل منوع يرد وأخذ لكن دي مرحلة بارك الله فيكم for watching إن شاء الله see you next time.